adiga hooyada maxay ku bartay horta hooyaday waxay bartay lama tirin karee marka hore aan horta hooyo maxay tahay luqadda Soomaaliga dadku waa ku hadlaa laakiin may yaqaaniin dhuuxa sifaha magaca loo bixiyo hooyo hoo yu'du waa adaa leh sida hobyo gaalkacyo adaa leh mugta okay xagga kale hadii laga dayo la yiraahdo habar hadday gabadhu hal jaan dhasho waa habar macnaheedu waa hab bar tii bartay binu aadanka habka ay u dhaqmayaan faraxalo afdhaqo cadayo aabadhe hooyodhe bahal xuux waa dab waa cir waa dhul bayna bartay horta waxayna bartay lama tirin karo laakiin markii la eego xagga dhaqanka anigu waxaan iraahdaa siyaasiga Soomaaliyeed hadduu fahmi lahaa macnaha ay xambaarsan tahay heesta waxaraha ama heesta ariga waaweyn ama heesta caanaha lagu lulo ama heesta kabadda ama heesta badarka lagu tumo hees hawleed oo isu dhinac yaal hogaamiye xun iyo hogaamiye fiican anigu waxaan qabaa dhibo ma timaadeen ee hawshu way dhammaan lahayd haddii siyaasiyiintu intaa fahmi lahaa hay maxaa ka maraga kaliil baa roob daay meel durugsan buu ka daay reerku caawu fiid kacay bulbul salaadka duhur mayl aqal lagama saaro markii hargonto ku ururo wiirada maqashu ay socon weydo maqashu waa dadka iyo naylaha iyo waxaraha carruurta yararka waxaraha iyo naylaha waa dhaqaaq weyda geedaha isu qaybiyeen hooyadu markaas ay ugu dhufan jireen waa daalayey hanaloo degooy waa oonayey narooriyoy gaajoonayey geel noo lisoy eeg ilmi waxaa lagu sheegay inaad daashay oo la degayo oo aad gaajootay oo geel lagu lisayo hooyo xaggee la degaya berri geediyey bana baarahey biyo qaadashooy waxarow wax la sheeg qasax daatay la sheeg la sheeg qaroon qubatay la sheeg la sheeg xamur xayana la sheeg la sheeg wax la sheegyo wax la sheelimayn how eeg marka siyaasiga Soomaaliyeed hadduu intuu fahmo bulshada asbuuciiba mar ugu soo cesho dagaal baa la gelayaa dagaalku kaan niqiin maaha qori maaha waa dagaal hawleed waa dagaal horumar waa dagaal danguud waxaynu qorshaysanay 5 sano inaynu ka shaqeyno dhulkeena beeraha wadooyinka jidadka haddii la ku garoomada dekadaha 500 u qaybiyo waxa ilaahay xooggiisa iska dhooban haye idinku kunkiinaanu waxaad ka shaqeynaysaan beerahan waxa beeraysaan timir iyo sarreen anugu waxaan bixinayaa haddaan xukuumadda ahay cunada cuni lahaydeen 5 sano bariiska cuni lahaydeen anaa bixinaa hadhow 5 sano markay dhammaato beeruhu isku dhalaan oo sarreenku isku dhalo lacagta ka soo baxda 20% ilaahay ka goosana inta kale idinka leh hay maxaa maran lahayd waxtar aad iyo aad weyn labada wabi iyo wabiga nugaal iyo wabiga dharoor maroo qarsoon iyo wabiga mudug maroo qarsoon 5 wabi baa lagu degi lahaa والله ودردرده والله ده وبي هوسا جيره waan waandhay ku ark waan dilaacin aduu wuxuu ku jira gobolka karaad aduu ku ogay waa lagu sheega laakiin afkiisa ka qarsoon anigu afkiisa waa soo helay tan dagaal galay marka waxaas oo nimco ah eeg iyo baddi hadii loo diro badda gala maanta intii naas warshadii loo keeno iyo diyaaradii kaargooga isagoo maanta la soo baxshay habeenada Mareykan looga cuni lahaa maxaa u malaynaysa caanaha geela oo dhayca oo Mareykan saa la idinku keeno hay wax ka qalsan badiri lahaa dadku adeer marka waxaynu u baahnay dhalinyarada iyo dalka in loo warramo eeg waxa la yiri war leh yaaba tale leh hooyo maxay tiri moogtahay maqalay warlaay ma lagu warramay waxa weerar dhacay waxa wiil la dilay waxa waran la qalay
yaa ii warramay ma walaalkaybaa webigaa sariyo waa heen ka yimi mogta eeg maqashii maqashi waxaa caddaynaysaa inaan loo warramin xog ma haya leedahay xog ma hayo haa walaalkii baa ii yimi xaggee ka yimi mogta fiiri